السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويا كريم كستاد لك مسلمين مع بالبوم media uga bartay inuu ka soo gudbiyo wararka warbixinaha ka dhaca dunida dacaladeeda maanta oo taariikhdu tahay 18 bisha 2020 waxaan warkeena ku bilaabaynaa dowladda federaalka wasiirada u qaabilsan caafimaadka ayaa waxa ay cadeysay maanta in la helo 34 kiis oo hor leh oo ah xanuunka COVID-19 iyada oo ku sheegtay tirada dhimashada guud inay gaarayso 57 qof halka ay tiri waxaa ka biskooday 165 qof tirada guud ahaan dalka ayaa waxay isku noqonaysaa 1565 ayay tiri waxaan kaloo idiin haynaa dowladda federaalka ayaa waxa u dirtay wafdi uu hogaaminayo wasiirka kalluumeysiga iyo diyaarad sida qalabka lagaga hortago COVID-19 oo ah qalabkaas oo ah sida gloveska gacmaha la gashado maaskarada wajiga iyo qalab fara badan oo loogu talagalay dowladda federaalka ayaa waxa ay si toos u gaarsiisaa dhammaan gobolada in dawooyinka ka soo dega magaalada Muqdisho iyada oo si habsami leh ugu dirta ayaa waxa ay qayb ka tahay tani dawooyinka loo diray dhammaan gobolada Soomaaliya fadlan haddii tahay daawada markii ugu horeysa channelka soo booqatid subscribe iyo like iyo comment ha kala bakhaylin adigoo mahadsan siina share garay haddaanu daawadayaal warkeenaan ku jirnaa aanu dibadda eegno Iiraan ninka ugu sareeya dalkaasi Iiraan ee lagu magacaabo Ayatollah ayaa waxa uu u digay amaba uu fariin digniina u diray dalka Mareykanka isaga oo yiri haddii ay isku dayaan dalkaasi Mareykanka weeyaan doonyaha ama maraakiibta shidaalka ka qaada dalka Iiraan ee u qaada Latin America in aanu gacmaha ka laaban doonin waxa oo kale uu sheegay waxa uu yiri waa in dalalka Afghanistan iyo Syria laga sifeeyaa ayuu yiri Mareykanka waxaad moodaa inuu sii kordhayo khilaafka ama xiisadda u dhaxaysa labada dal ee Iiraan iyo Mareykanka kadib muddooyinkan badan oo xaaladoodu ay sii xumaanayso waxa uu Iiraan shidaal siiya dalal badan oo Latin America ah Iiraan oo kamid ah wadamada gaaska dabiiciga ah ayaa gaasiisa waxa loo qaadaa sida dalka Ruushka iyo Venezuela waxa uu yiri Ayatollah maraakiibta Venezuela aan u diri doono hadduu Mareykanka isurtaa ku sameeyo gacmaha anagu kama laaban doono waxaana laga cabsi qabaa inuu dagaal badda ku dhaxmaro Mareykanka isaguna ciidamo fara badan oo huwana ay badda fadhiyaan ayaa Iiraan waxa iyaduna ay badda u yaala maraakiib dagaal kuwaas oo iyaguna maalmihii la soo dhaafay sameynayay dholotus iyadoo markab Iiraan ee leedahay oo dholotus sameynaya uu dhawaan gantaal ka fakaday uu ku dhuftay dooniyihii isaga la shaqeynayo ama caawiyaashu ahaa waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal aaladda la dhaho 5G ayaa waxaa la soo sheegayaa dalka China inuu yahay dalka ugu horumarsan dunida marka la eego dhinaca aaladda internetka isagoo la soo sheegay in ka badan 200 oo kun oo anteenooyin ama substation oo ah 5G inuu dalkaasi China hirgeliyay sanadan gudaheeda oo kaliya China oo aad moodid inay awoodiisa oo sii labalaabayo xag tiknoolajiyada iyo xag dhaqaale waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal Faransiiska waxaa ka socda dibadbaxyo aan kala go' lahayn khaasatan gobolka Lyon ayaa waxaa la soo sheegayaa dibadbaxyo careysan waxaan loo yaqaan lockdown-ka inay isku dhaceen booliiska oo ay waliba dhex martay halkaasi isjiidasho fara badan iyadoo ay la soo sheegay inay dadka ilaahay hadeer ka sii wadaan banaanbaxa halkaasi oo ay ku adkaysteen inaanay dib ugu noqon doonin guryaha waxaad moodaa adduunku inuu isa soo tarayo dhibaatooyinka uu ku hayo coronavirus kadib markii uu waqti dheer qaatay xaaladii lockdown-ka iyadoo ay dadku aanay u sii adkaysan karin ayaad moodaa inay guryaha sii joogaan amaba ay noqotay wax aad u adag oo aan noqon coronavirus xilli aw dhamaanayna aan la ogeyn waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Ingiriiska oo isaguna kamid ah dalalka lockdown-ka saameeyay ayaa waxaa la soo sheegayaa in koobka kafeega uu ka marayo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Britain waxa la yiraahdo 12 boonis iyadoo uu dhigma taasi ay noqonayso wax aad u qaaliya waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Mareykanka waxaa ka dhacay gobolka Maryland ee carrada Mareykanka waxaa ka dhacday arrin mucjiso ah hooyo ayaa waxa ay wadatay 2 ciyaal oo yaryar oo ay u kaxaysatay meel Ceylon waxa la dhaho beauty Ceylonka kadibna labadii ciyaal ahaa yaryar ay waxa ay kaga tagtay gaariga dhexdiisa iyadoo daaqadaha iyo muraayadaha u xirtay arrintaas oo ay booliiska ku wargeliyeen dad meesha marayay waa Bolmog Media tan iyo kulanti dama